bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada jaalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso mudan in lagu cibro qaato. qisadan ayaa waxay dhex martay haweeney maskiina oo ka ganacsatay iibinta subaga iyo nin hantiil ah oo aada u kibiir badnaa. haweeneyda miskiinta ayaa alla subxaana wa tacaala wuxuu siiyey 4 caruur ah, waxayna ka murugeysay noloshooda iyo waxbarashadooda. 4 cunug aabahood ayaa wuxuu dhintay 4 sano ka hor, waxayna hooyadani go-aansatay inay caruurteeda dhexda u xirato isla markaa noloshooda xil iska saarto. waxaa bilowday sanadwasiyeedkii cusbaa. caruurtiina waxay u baahan yihiin yunifoomkii iskuulka iyo qarashkii ay ku iibsan lahaayeen waxyaabaha iskuulka looga baahan yahay. maamadan ma aysan haysan wax dhaqaalo ah, waxayna ifka ka qabtay xoogaa subag ah oo ugu jiro weel yar oo ay ku iibiso suuqa, isla markaana ay kasoo hesho xoogaa faa'iide ah. ayada oo meel fadhiso iska fikirayso ayaa waxaa u yimid wiilasheedii wiilkii ugu yaraa oo ay ka muuqato farxad. wuxuuna ku yidhi hooyadii, hooyo maanta waxaan kuu duceeya anigoo salaad dukanayo oo sujuudsan, waxaana rajaynayaa inuu alla subxaana wa tacaala berita kuu sahli doono risqi fara badan. hooyadii aad ayay u faraxday, waxayna xabad ka saartay wiilkeedii yaraa, waxayna ku tidhi, sida aad iigu duceysay haddii aan berito wax u soo helo waxaan kuu ballan qaadayaa inaan kuu iibiyo dhar aad u qurux badan iyo alaabtii aad iskuulka ku aadi lahayd. markii uu waaga baryay hooyadii waxay soo qaadatay subagii yaraa oo weelka ugu jiray, waxayna soo aaday suuqa si ay u soo hesho xoogaa faa'iide ah. ayadoo dhex socota suuqa ayaa waxa u yeedhi nin uu ka muuqdo kibir iyo isla weynin, wuxuuna weydiiyey waxa ay waddo. waxay ku tiri si ay ku jirto tawaaduc, waxaan wadaa subag. wuxuu yidhi bal itusi aan arkee sida uu u yeelo subaga aad waddo. hooyadii maskiinta ahayd markii ay subaga madaxa ka soo dejinaysay ayaa waxaa ninkii dharkiisa ku daatay xoogaa subag ah. ninkii aad ayuu carooday, markaasuu ku yidhi maxaad dharkayga u wasaqaysay? meeshaan kama dhaqaaqaysid maanta adiga oon isiinin maradan lacagteeda. haweeneydii maskiinta ahayd aad ayay u murugootay, waxayna isku dayday inay u cuurdaarato, waxayna u sheegtay inaysan awoodin oo ay maskiin tahay, wax lacagana aysan qabin. balse ninkii kibirka badnaa waa uu ka diiday. kadib maskiintii waxay weydiisay qiimaha maradiisa, wuxuu ku yidhi waa 1,000 diinaar. hooyadii way iska oysay, waxayna ku tiri ii naxariiso oo ha ay fadeexaynin, waxaan ahay hooyo aan waxba haysanin. xaggeen ka keenin lacagta aad sheeganayso? aniga ayaaba u baahan intaa in ka badan oo carruurteeda ugu iibiyo waxyaabaha ay ugu baahan yihiin iskuulka. ninkii isaga oo haweeneydii ku qaylinaya ayaa waxaa soo dhinac istaagay wiil dhallinyaro ah, markaasuu hooyadii weydiiyey waxa ay la oynayso. markaasi waxay u sheegtay qisadii dhex martay iyada iyo ninkan. wiilkii ayaa ninkii la dooday, waxaana meeshii isugu soo baxay dad aad u fara badan. dadkii markii ogaadeen ninkan arrintiisa aad ayay u qayliyeen, waxayna ku tilmaameen inuu yahay nin aan wanaagsanayn. kadib wiilkii ayaa wuxuu ku yidhi ninkii, lacagta aad haweeneyda ka rabto waa meeqo? markaasuu wuxuu ku yidhi waa 1,000 diinaar. kadib wiilkii wuxuu soo saaray lacagtii, wuxuuna ku yidhi qaado, waatan lacagtaadii. ninkii ayaa isku dayay inuu lacagta qaato, meeshana uu ka dhaqaaqo. wiilkii ayaa ku yidhi xaggeed u socotaa? soo lacagtaadii ma helin? wuxuu ku yidhi haa. markaasaa wiilkii ku yidhi maradii lacagteeda waad qaadatay ee nasii oo noo siib, annaga ayaa iska leh. markaasuu ninkii wuxuu yidhi haddii aan siibi waayo maxaa dhacayo? wiilkii wuxuu ku yidhi lacag ayaadna siinaysaa. markaasuu ku yidhi waa meeqo? waxaa lagu yidhi waa 2,000 oo diinaar. markaasuu wuxuu yidhi ninkii, maanigu qaban ayaan baxayaa, taasi waa dulmi. wiilkii ayaa ku yidhi haweeneyda maskiinta ah waxaad ku samaysay soo ma ahayn dulmi. ninkii qaladkiisa ayuu fahmay, wuxuuna ka cudur daatay wixii uu sameeyey, wuxuuna soo celiyey lacagtii iyo 1,000 kale oo dheeraad ah. wiilkii wuxuu dadka hortooda ku siiyey hooyadii 2,000 oo diinaar, wuxuuna ku yidhi waa hadiyo ee qaado. hooyadii arrintan way rumaysan weysay, waxayna ku noqotay layaab, waxayna ku dhacday dhulka. wiilkii markii uu arkay in hooyadii ay weerartay ayuu gaarigiisii ku soo qaaday, wuxuuna geeyey gurigeeda. markii ay tagtay gurigeeda ayay waxay u yeertay wiilkeedii yaraa, waxayna ku tiri alla ducadaadii waa u aqbalay maanta, wuxuuna naga arsuqay meel aan ka filanaynin. maalinkii xigtay hooyadii waxay soo aaday suuqa, waxayna carruurteeda u soo iibisay waxyaabihii ay u baahnaayeen oo dhan. sidaa ayaana alla uga qaaday murugadii haysatay. qisadani waxaynu ka faa'iideynaa inaad mar waliba alla u bandhigato umuurahaaga, isla markaana aad tala saarato, maxaa yeele wuxuu alla subxaana wa tacaala leeyahay ibarya aniga waan idiin ajiibayaaye. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gamareelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.